وسؤال عجائب لوي gabadhan waxay su'aasha ku bilowday inna allaha la yastahi min alhaq waxay tiri waxa iqaba nin jinni ah xilli aan ismeersanina aanan aqoonin jamaacna igu sameeya si toos ahna ayuu igu yimaadaa oo markuu rabo inuu xaajo u guto waxa iyara qabata waxaad moodo hurdo yar marka ayuu hawshiisa gutaa anna toos ayaan u dareemaa hawshiisa waqtina malahan iyo goob uu kugu simayo haddii aan suuq joogo iyo haddii aan guri joogaba way isugu mid wuxuuna inacsiyay ninkaygii caadiga ahaa ee uu igu diray su'aasheedu waxay tahay kow sideen isaga celiyay ninkan jinka ah labo haddii uu jamaaco qubays miyaa igu waajibay ileen sidan ninkayga caadiga ah u dareemo ayaan isna u dareemayaa jinni iyo insise ma iskuursan karaan بسم الله الرحمن الرحيم سؤال لو سو قري ما ان dadka lagaga qosliyo laakiin waa xaqiiqo jirta culimaduna way ka hadleen waxyaradan si kooban uga jawaabo horta way suroobi kartaa sida culimada badani qabaan in uu jinka iyo insigu isu galmoodaan oo hadda gabadh way wax hadlaysa laakiin rag waxa jira iyaguna naaga jin ah u galmooda iyaguna way jiraan qisooyin aniga soo maray baaba kamid oo nin iyo rag yimid oo yiri waxana nahayst waan xaqiiqo jirta waay marka ragga jinsiga labada jinka iyo insigu horta ma isu galmoon karaan ma suurtagal ma tahay culimo badan waxay qabaan quraankayba weelaka wax ka helheleeno waxay u daliishanayaan aayadii quraanka fi suurati ku jirtay fi suurati ar-rahman lam yatmithunna insun qablahum wala jan dumarka waxa laga hadlayay jannada qoladan dumarkan la siiyay loogu talagalay hortood insina uma galmoonin jinnina uma galmoonin baa leeyahay meesha waxa laga fahmay inuu jinku insiga u galmoon karo culimada qaar kamida waxay u dilishay qurtubi iyo waxayba ku keeneenba aayada iyadana fi suurati al-isra ku jirta wa sharikum fil amwali wal awlad athar mujahid uu ka keenay baa jiro ma aqaan suu sugan yahay wuxuu yiri ninku markuu xaaskiisa u galmoonayo haduusan adkaartii akhriin bismillah allahumma jannibna shaytaana wa jannib shaytaana ma razaqtana haduusan akhriin shaytaanku ibtu isaga maraya buu xubinka taranka ibtiis oo isku maraya kadibna islaantii wala isticmaali buu marka washaarikum fil amwali wal awlad tafsir tafasiirta kamid adiga way suroobi kartaa isu galmoodka su'aasha xigta inay iskuursadaan ma suroobi kartaa jawaabtu waa maya guur ma dhaxmari karo sax ah ilma ma isu dhali karaan ma ka suurowdaa ilma jin dhalay oo aabba jin u yahay inay hooyo insiya dhasho ayaduna waa maya ma suurowdo Soomaaliyeed laakiin galmadu way suroobi kartaa culimadu saasay leeyihiin طيب dhanka waa dhankaas dhanka labaad dambi ma ku leeyahay ruuxa noocaas ee jinku uu qasbanayo ama ninka naagta jintii ay qasbayso ama haweeneyda ninka muxuu ahaayay ninka jinkii uu u galmoonayo dambi ma leeyahay ruuxaas jawaabtu waxa weeyaan inta badan waa qasban yahay ruuxaas hadduu qasban yahayna dambi ma leh hadiis laakiin aadan qasbanayn oo iska celin karto laakiin shaqadan aad u bogtayba marka dambiilata taasi waxa way ithmi iyo dambi ma ka dhalanaya marka la yiraahdo mas'alada xigta qabays ma waajibaya dhowr xaala loo kala qaadaya fuqahadu markay ka hadleen way kala ku kala aragti bedelan yihiin masaa'ilna masaa'il horay looga hadlay
waxay leeyihiin haddii uu ugu yimaado hurdo ruuxu isagoo hurda iyadoo hurdo u yimid riyo unbay wax ku dhaceen wax biyo ana iskumayna arag qabays markaa waajibi maayo waa ruux qarway oo kale sooma ruux riyooday oo kale biyana kama iskumayna arag xaaladda labaad waxa weeyaan waa inuu ugu yimaado si life ah si toos iyadoo soo jeeda inuu ugu yimaado ruux bini aadanana isu soo ekaysiyo nin caadi iska soo dhigo xaaladda iyada ah waxay la mid tahay iyadoo ruux bini aadana u galmooday oo kale ama biyaha yimaadeen ama yeesan iimaanina way qabaysan xaalad saddexaad baa soo hadhay inuu si toosoo soo jeed oo life ugu yimaado laakiin aysan arkin balaayo un baa ka shaqaynaysanaysa laakiin ma aragto way dhici kartaa waa xaalad kale wey laakiin waa soo jeedaa xaaladda iyada hadday biyo yimaadaan waa qabays haddaynan imaanin way isku khilaafsan yihiin culimo badani waxay qabaan ha qabaysato qaarna waxay leeyihiin war meesha wax la arkahayaba hawl ma qabanina biyana ma imaanin see loo qabaysana qaar baa doodaa qaba mas'aladaasi marka meelahaasay mari fuqahaduna saas siyaabaha kala gedisan bay uga hadleen ama see laysaga celin karaa waxaad u baahan tahay in aad barato qaabka shayaadiinta laysaga celiyo sooma adkaar farabadan quraan ku soo aroortay qaabab kala gedisan xadiista nabiga ku timi sallallahu alayhi wasallam wa imma yanzaghannaka min ash-shaytaani nazghun fasta'id billah ilaahay inaad ku cararto adkaarta markaad seexanayso markaad muxuu ahaay soo toosto xilli walba waxay leedahay adkaar shayaadiinta la isaga celiyaa jirta iyo muxuu ahaay ducooyin inaad ku waabadsato ilaahayna ku cararto tabaaraka wa tacaala taas ayaad isaga celin kartaa ama haddii ilaahay kaa qabto tabaaraka wa tacaala aad muxuu ahaay kaga fayoobaan kartaa wabillahi tawfiiq